السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامة ولا ليال مسلمين تودان ميل أجوكتين أمد الصوماليات قارهان waxaan ahay abu Soomaaliyeed oo gabadhan ay ka xanuunsan tahay xanuunkeedan waxa waaye qaybta saxarada waaye marka de wax walba ilaahay baa wax walba awooday lagu ma dhalin ayadoo meesha saxarada ay maaragtay aan lahayn la dhalay marka alxamdulillah waxaan geynay Kismaayo isbitaal oo waxaan geynay meel ko hay'ada ay joogaan oo nin la yiraahdo Dr. Cabdullaahi Alkacas la yiraahdo qalliin ku bilaabay qalay marka alxamdulillah qalliinkaas lacag ma ahayn marka koow waa meesha saxarada waa qalay kibacdu wuxuu kilada laga qala marka waxa dhacay kibacday dagaalka kala carra dhacay doctorkii markii meesha isku dambeeyay mid asiga oo doctor kala jooga qalay qalliinkii waa ku halaaway meesha saxarada ma ahayn meel kale ahayd marka aad ayadoo u dhib qabta anigu runtii aan keenay xamaraan keenay qalliin saddexaad kale aan ku sameeyay ayadana hada lagu ma guuleysan marka hadii ilaahay yiraahdo ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa waxaan aynin walaalkiina islaam ah Soomaaliya gabadhan waa gabar kale oo walaashiina waa gabadhiina waa gabar Soomaaliyeed xagga saxarada iyo wax walba ximinaha ximin walba waxa waa nimco oo gaar ah waay marka ximanta saxarada waa nimco aad u weyn marka meesha gabadha ka xiran tahay marka meesha haday xiran tahay hada waa ogtihiin dibka ay leedahay horta alxamdulillah ilaahay waa nagu gargaaray hadda dibkeeda alxamdulillah marma caloosha intay taaganta iska xanuunta meeshii waa xiran tahay marka hada alxamdulillah ilaahay baa wax walba ma ku mahadsan waa iska imtixaan waa iska adduunyo marka walaalaha muxsiniinta ah oo dadka caawiya waxaan leeyahay garayo meel dheer hala gaarsiiyo garabkiina Allah kala diyaar la idmo soo duceeyna insha Allah taala bar legal soo xiriiro furuhu waa 8 14 konton isideed soddon isideed maxamed cabdullaahi xasan ku qoran marka anigu mobile nicla iska isticmaalaan WhatsApp laakiin nabadgelkiisa insha Allah muuqaalka ummadda Soomaaliyeed la wadaagi doonaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ummaddaas kaga soo qaado